عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مالي وناكسن عسر وناكسن أحد وناكسن وإسكا هديسان هاينا الحمد لله مفانتين وانيجي وصول لابطي مفانتين مر لباتي مر سحاد إي مر أفرادو سبسكرايب تهيلا دافنا سبسكرايب لايك كومنت شير بها وما تسي لو شير جراي واتقانين أنا شير جراي مفانتين maanta waxaa meesha ka sheegi rabaa horta nimanka maxaa la dhihi jiray youtube-ka ku jira maxaa nimanka social media dhex fakanay nin fiican ma jiro nimankan waxaa waaye maxaa la dhihi jiray gabar walaashood oo muslim oo xataa dad ka hadlaysid si anshaxa looga hadlaa because inaad soo fakatid oo shaashada soo dhigtid naagta masaakiinta qaadan waa laga fiican yahay anshaxna ma aha kuwii soo dhig waxaan dhahayaa iska dhaafa maanta wixii ka dambeeyay kuwii soo dhigana waxaan dhahaa waa mahadsantihiin waxaan ka hadli rabaa مستحيندو وبنانك وفكر هايس ما فهمتين بس افكر هايس عن كل احد شير دو الدين محد ولا فكنيسي حكرتا marka مستحيندو horta waa gabar Soomaaliyeed gabar walaasheen waa gabar muslimad waa gabar fanaanad hasi ahaatee qafkan bil aadanka horta marka hore gabar markii lagu dhaha magaca naagaha magacooda mid waa hooyada mid waa walaasha mid waa habaryarta mid waa eedada mid waa gabadha dhashay midna waa naagtaada ma fahanteen naag wax walba naaga maxaa la jiray ku uslanteen nimanka hataa naagay ku uslan because naagta caloosha kugu soo qaaday iyo inta soo maxaa la jiray bilood caloosha kugu haysay inta soo sano dusheeda kugu haysay ku soo korinaysa ilaa si aqliyisinaysa ka weynaanaysa ma sha Allah naag le inta kula soo dhaweysay khayr Allah siinaaga insha Allah naag oo maxaa la dhihi jiray waxaa maqal mustaacindo naag lala qabo inay social media soo dhaxdhigto horta naagta aad soo dhaxdhigtay social media mustaacindo ma aha waa adiga because naagta la social media soo dhaxdhigaysid adiga jirkeeda inta ku taala adna kugu taalo walaalay ma fahantay inta adiga maxaa la dhihi jiray maanta ceeb u ah adna ceeb ay ku tahay maanta hadda aniga korkay banaanka soo dhigay naagaha dhankoodooda banaanka hablaay waa liidhaha way si jirtaa laakiin naagoo dhan ceebteeda banaankeena maanta dabada soo qawsado ya naagoo dhan ceebteeda banaanka la keeno maysa aha inaad soo fakatid oo gabar walaasha inaad soo fakatid oo banaankaas maxaa la dhihi jiray cawradeeda keentid meelaha ku warwareejisid waa laga fiican yahay idinkana inaad bumbuunisaan waa laga fiican yahay ma fahanteen isbumbuunayo isjiid waa la iskala fiican yahay waayo gabadhan walaasha haddaa lagula qabo abadkeeda la isla guursan jiray afar la isla guursadaa inta afar naagood la isla guursadaa hal ma lama diinta lagu sheegay fahantay naag afar inay guursan kartaa lama dhihin diinta kitaab ay ku qoranta male laakiin nin afar naag baadweet waa tan sheegay naagta oo ninkeeda inta ka tagtay maxaa la jiray xabreertay xanuunsan intay dhaxda nin kala guursanaysa diinta oo sheegay in naag hada lagu guurso walaalay macaane adina calafkaada qabta iyadina calafkeeda qabta ilaahay uu qoray ma fahantay naaga liila guursadana yeela inta yeela waa badbooda ma fahantay ida dharlaan keena horta kartida horta wax walba sameeysid ma fahantay dharlaan qafkeenta soo xadda iska dhaafta waxa tahayba ya kartidaada iyo aqligaada iyo maskaxdaada ad ninkaada ku dhaqan lahayd aday ku taala naag lagu guursana waxay ka qaadi kartaa malaha laakiin aan waxaan dhahaa gabdhahan aan la qabin naagaha nimanka qabo iska dhaafo ma fiicna diinta inkastoo sheegaysa ma seeraa jira wax walba iska jira ma fahanteen ogaho waxaa fiican nimanka naagaha qaba in laga horta ani ahaanteyda naaga liila kursanaa ma jecli si Allah waa gooni laakiin ani nafsi ahaanteyda ma jecli gabdhaha kalena ayagana ma jecla umaleyna laakiin haday iska dhaafo ilaahay u qorninka inuu naag kala gurso yuu awood adna ku beeli kara iyadana beeli kara waxaa la badboodo waa qaladsi ugu xumeed waayo qofkaan ay maxaa la dhihi jiray waxaad noqonaysa maanta wixii aad maxaa la dhihi jiray noqonaysid ilaahay waxaad soo koray waay maalinta yawmal qiyaamo oo maxaa la dhihi jiray maalinta aad dhalanayso yawmal qiyaamo dhahe intaan maalinta aad dhalanayso xabiibi aad dhaheedo lagu uumay yaa wax walba qararka lagu sii wixii kugu dhici lahaa wax walba say noqon lahaayeen ilaahay ku qoray fahantay wuxuu ilaahay ku qorina maxaa la dhihi jiray waxba ma ka dhihi kartid wax qoran leedahay waxaan qorneen ma dhici karaanba marka wixii kugu dhacay iyo wixii kugu soo socdo waxa la wixii kugu dhacay ama wax kugu soo socdo ku sanaysa weeyeen
kuwaasna ha kaa weynaadeen adoo waxaan maanta inay kugu dhacaan rabin amisana maxaa la dhihi jiray qofka walaalka inay ku dhacaan rabin way ku dhacday soo maaha ilaahay aa u kasi alxamdulilah fahanteen qofka ilaahay hadduu u kasi marka ma aha inaa dhahdid aniga maxaa la dhihi jiray saana igu dhacday ama heblow saana ku dhacday waxaa loo baahan yahay dhaqan gaal inaan iska dayno waxaa ilaahay noo qora alxamdulilah dhahna wixii nagu dhaca alxamdulilah dhahna fahanteen marka inaa badboodo iyo naaga liila guursado iyo maroodinkan xoora iyo intaan u booda iyo naagan social media soo dhiga iyo gabadha walaasha horta waad ka qaldantahay inaad social media soo dhex dhigto ma ahayn fahanteen aba soo dhex dhigtayba dhacdiba dhacdu wixii dhacay dhaceeni midda kale aan la siiyaayo waxaa waaye soomaalidan farahan ka fadhin karin oo iimaan kala oo wixii maanta say u faafaan diinta muslimka ma faafisaan wixii qarka ku jiro ma faafisaan marka wixii dambi dhan iyo wixii maxaa la dhihi jiray maanta waxaan ku dhahay haddaa intaa madaxa soo qabsadaan meesha soo fariista waa ogahay cirkii dhulka meel kasta naag madax qaabana imaad naag san yeelata imaad naag inta soo qaabata imaad naag inta imaadaan laha laakiin hadda saa isu jilbaabo wax igu mashquula iyo wax iraawo ma jirto ma fahanteen alxamdulilah wixii maxaa la dhihi jiray asturnaan kuwa uma maleynaya inaan qaawnaan ku helaayo qawnaanna allah iga koriyo waxaan ku qawnaado allah iga qabta ma fahanteen kulley anoo miirkayga qabo inaan qawnaana uma maleynayo anoo waalana ilaahay ima tuso waalida mishaanka jecelahay anoo waalana meelaha socdo dalkan waalna anoo dhintaa because waxaa la dhahay kullu nafsin daa'iqatul mawt qof walba oo naf ku jirto mawdna waa la dhimanaa ma fahanteen inaan nolol xun oo cariiriyo maxaa la dhihi jiray waali ama ilaa horta hana tusin inaan ku noolaan lahayd adoo qabrigaas soo gashaa ku dhanta ilaahay waxaad kuu qoray maraysaa ma fahanteen taas meeshaas ugu soo laabanaa walaalayaalow dhaaf waxaana taafinaysaa sheer inta u wada inta u sheer garaysaan inta u sheer garaynaysaa yaa sheer garay ku dirsada si sheer lagu dhahay sheer garayn meeytide midda xumaan inta ula fafakeen maxaa u dhacdee bar iska daaya dhibka xumaanta iska dhaafa walaalayaalow wix maxaa la dhihi jiray waxaa la dhahay ceebtadeed intaad taas isleedaa la ceebtaada adina banaankaas ilaahay ku fashilaa ma fahanteen inaa maxaa la dhihi jiray dadka ceebahooda raadis waa laga fiican yahay inaad dadka xumaantooda raadis waa laga fiican yahay gabadha walaasheed gabadhaasaysi waa ku xumaatay way xumaysay si xuna ulu dhaqantay banaankaasay keentay ayadoo dharlaan ma fahanteen gabadhaas maxaa la dhihi jiray waad ka khaldan tahay raali ahaw dheh maxaa la dhihi jiray dadkaanayta meelaha ku wareejinana ka dhaafa qofka soo gelina ha ka saara ma fahanteen waa sidaas marka sidaas waaye intaas aan hayaa subscribe ii saara subscribe waa mahadsantiin inta subscribe ii saartay inta hadda ku cusbahayna ha ii saarta ii share garee thank you fahanteen like comment wax walba fahanteen wixii khayrka ku jiro dhan allahna waafajiye insha allah sidaas waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr badan ayaan idin dhaafayaa